haddaba waxay yidhahdaan qur-aanku waa kitaabka dunida loogu akhris badan yahay waxaa dunida buug yaalla waa buugga loogu akhris badan yahay waayo haddaynan cid kaleba eegin dee dunida inta tukataa maalin kasta 17 jeer bay faatixada akhridaa haddaad tidhaahdo 2 bilyan ee muslimkaa nus baa tukada haddaad tidhaahdo ama 500 baa tukada haddaad tidhaahdo 517 ku dhufo waa almost 8 bilyan oo jeer baa la akhriyaa faatixada weeyaan maalintii markaynu ka nimaadno aan quraankii kale la akhrinayo tirada badnaa idan waxa la yiraahdaa waxay yiraahdaan kutubta matbuuca kitabada dawr nashr ay soo saaraan injiilka ugu badan bay yiraahdaan oo 200 oo luqayn ku dhadhow ku qoran laakiin waxa la yiraahdaa kitaab la akhriyo waxa ugu badan quraanka haddana macalasaf بعض العلماء هذا وحيد هذا وكتاب كله فهم درين كتاب ضرر ما آخرنا أيوه هذا يدا اللي فهم سنين لآخرنا أيوه ومد عجب قبط مركا هذا القرآن ككلورن كتيم هذا فاتحة وقف كستوى مسلمون قال قاعد واجب يكتي إلى سلاد بتكري هاي ساعي كمان qof kasta oo muslim oo qaangaadha faatixada waajib bay ku tahay waana la arkaa qof kasta oo muslim markaas inuu ugu yaraan 5 salaadood hadduu tukado inuu 17 jeer u akhriyo intee faatixada fahamsan markaa ayaa waxay ka hadlayso suurat al-faatiha muslimiinta haddaynu maanta dhex marno nidhaahno war faatixada ayaa macnaheeda garanaya intaad u malaynaysaa baa faatixada macnaheeda garanaysa idan waa kitaabka looguna akhris badan yahay looguna faham daran yahay su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay ilaahayna wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala waxaan u soo dejiyey in la akhriyo ma aha oo keliya liyadabbaruu aayaatihi baa ilahay yidhi waliyatadakara ulul albaab ilaahay gaala iyo munaafiqiin buu ceebeynaya waxaa la leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana maca ala quluubin akhfaaluha هو إيمانك لجاه لنا وحليا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوة أولئك يؤمنون به بإلهي كتل المامية إذن أيها الأحبة أسكت يين إنه ورك وبن كان نداهنه بل صورة إلهي نجوا جبي محيك ورميسا قف كستو مسلمة إلهي وحليا تكو قف كستو مسلمة وحليا الصلاة دادو الصحي ما يشهد فاتحة آخر وين فاتحة آخر ده فاتحة إلهي نقول الضون صدي محيك ورمي سباي سويدين لمركا ما فهم بحيث الدم قرن إلهي فاتحة وحود دورتين نقطة الكتاب أما فاتحة الكتاب كتاب كقرآن كأه إن بلو قون نقطة إلهي ودورت فاتحة سي waxaynu oran karnaa waa quraanku mujmala quraanku duuduuba inta dambe quraanku dhan waa tafsiil bay culimadu yiraahdaan waxa uu quraanku ka warramo oo dhan faatixa sida qofka faatixada gartay ilaahay kitaabkiisa wuu gartay risaaladiina wuu fahmay wixii ilaahay uga dan lahana wuu gartay sitaas ay u dhacdaba ilaahayna yiri war maalin kasta akhriyo ku celceli si aad aniga warkayga u fahamto ninkii faatixada garan waayana waa warmoog wax badan kama oga wixii rabbi faray sida awgeed ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya أعظم سورة إلهي يسود شيء وفاتحة أعظم سورة قرآن كبس سورة دوين بقول يا فريق طبعا السورة ده قرآن كا وحوين فاتحة ووين صدر هذا حديث كالصحيح حكوية له أي النبي عليه الصلاة والسلام سعيد ابن المعلى صحابي قال الله يرحمه مساجد كنت كان يبو يارا سقوا الصلاة كتيرة أيوه يارا دبتنا صلاة دي بوس كوت مركو صلاة كبحي بو يمي
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يانا كوي يرين حد يقبل وي ويقول إلهي رسول كيسيو صلاة بان كتير وميان مقلب يرين إلهي كوي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سنة صلاة سنة أبو كتير صلاة السنة ولا قبحيا دو النبي قال أقبلها النبي قد داي والد قال له قبحيا دي أدقو صلاة سنة أبو كتير هو يدا هبلو كتير هذا وين هي هذا واجب ويدا هنا ضد هذا ما بها وجوابته واجب كانت وضعنا وسنة فرل كسل له قبح ماي وحكى واجب سن واجب هو مركا واجب يا الله سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام صحابي قام وحكوا لي هي هدام هو يريم حد يوي من وين دابا ترى وحول الله رسول كيسي وسلاد بان كجري مياد ما قلبه يرين إلهي يري استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلهي الرسول أقبل هذا يدين يران مياد ما قلب دابا ترى صحابي النبي وحكوا عليه الصلاة والسلام وارمكوا براء أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد قرآن كسورة وين مكو برابوكو يري انت هاند مساجد ككبحين dabeetana gacantu ay qabtay buu yiri markii aan rabnay inaan baxno ayaan ku yiri buu yiri ilaahay rasuulkiisa saudigi buu yiri quraanka suurada ugu weyn ma ku baraya intaynan bixin nabigu wuxuu ku yiri alayhi salatu wasalaam alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utitu alhamdulillahi rabbil alamin wa laqad ataynaka sab'an min al mathani wal qur'anul azim ba ilaahay waxaan ku siinay nabi maxamedow تضبط صون نغضة هي قرآن كوي وفاتحة يدو مكلة شوقا إلهي وقوم النشيغان يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الحجر آيات كمكي كتيرة وحنو كسين نيبا إلهي لي سبع المثاني تبتني نبي وحولي سبع المثاني إلهي شيء قرآن كويني وفاتحة إذن حديث كاسي إمام البخاري وورينا هي غير كيبة أعظم سورة في كتاب الله وفاتحة ما قررنا مركا أعظم سورة وحيك والرمس هذين أعظم سورة فهم كري وينه دي ملا أنت كلنا حوق فهم مين وحكوا قفلا ما قرآن كقري وينت مايا وأعظم وحي أوحاه الله إلى الأنبياء جميعا وحي بوحي النبي معه يا أنبياء كهر رئيسي بكو سودكي وحي بنتي سودكتي فاتحة وقوين سيدنا وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب صحابي اللي ورنشري أيوه النبي يقول كيف تقرأ في الصلاة صاد وأخرضه فقرأ أم القرآن دبتنا فاتحة وأخرية دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام وحكوري والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته نبي عليه الصلاة والسلام وحيري إله نفتيد قاعدتي سكوشرتان كل أرطيه توراة لغو مسودتشين إيا إنجيل إيا الزبور إيا فرقان تونا وحلم ده سورة كويني مسودقين بقى وحي كتاب سودق يي وحيغا كو قران اي حقا الله كيمي فاتحه وغوي يدا اهل النبي يقول السبعه المثاني هي قران العظيم بيدا هدبا هدي اي تahay quraanka ilaahay soo dajiyay sida labada xadiis sheegayaan ama waxyigii soo dagayba suuradii ugu weynayd ee rabbi uu keeno subxaanahu wa tacaala bale iyada malag khaasa loo soo dhiibay albaab gaarana loo furay ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحاوت الماما يا يسوع جبريل فرد أيو جبريل سنقر مغلي دبتر وحلو الباب
ka mid ah cirka oo la furay weligii hore looma furina maanta qura la furay malag baa ka soo degay buu yidhi weligii aan hore dhulka u iman idan faatixadu markay dhulka imanaysay wafdi gaaraa wadatay jibriil oo qura muu soo qaadine waxa keenay malag aan dhulkaba hore u imanin dabeetana abshir binuurayni uutiitahumaa buu yidhi laba nuur oo lagu siiyey ku bishaarayso lam yu'tahumaa nabiyun qablak adiga hortaa nebi ka mid aan la siinin labadan nuur ee nebi maxamed oo qura la siiyey aan ambiyadii hore helini maxay yihiin faatixatu alkitaab wa khawaatimu suurati albaqara lan taqra bixarfin minha ilaa ucطiita muslim baa xadiidka wariyeysana kan xadiidkaa sheegaya malag gaari inuu siday faatixada iyo aayaadka ugu dambeeya suuraة الbaqra aamana الrasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wاlmu'minuun aayaadkaasi u dambeeya ee uu nebigu ku tilmaamay ninka habeen akhriya ka fataah inay ku filantay uu nebigu sheegay malag gaaraha la soo degay haddaba faatixadaas sidaa axaadiista nebigu u tilmaamtay ilaahayna sidaa u maamuusay malaggaa gaarka iyo wafdiga gaari sideen asmaada tirada badan leh alimaam alqurطubi fii tafsiiri 12 magac buu soo aroorinaya oo faatixada la yidhaahdo umu اlkitaab sabci اlmathani الرقية الشافية الشفاء الوافية الكافية الأساس الحمد يعني لبا iyo toban magac buu soo aroorinaya oo inta badan adilla u keenaya